gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa maanta si rasmi ah u soo afjaray khilaafin muddo ka aloosnaa dugsiga 50 May oo sababay in guud ahaanba waxbarashada dugsigan ay xidhanto kadib markii ardayda wax ku barata rabshada ka abuureen dugsigan kulan uu maanta gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri oo la yeeshay waalidiinta ardayda dugsigan ayaa lagu soo gabagabeeyay khilaafkani waxaana uu barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo cadcad oo ku taxalluqa dardaaran iyo waano warbiyaha wada cabtaan oo iskuulkii baa wada dhigataan oo garoonkii baa wada tageysaan oo dadkii iska taqaanaan oo ilaahay meel buu idin wada dhigay oo ku wada uumantii cidda dambe aanu ku soo qaban ama ay iskuulka ay ka dhacdo waan idin sheegayaa qabyaalad bay u kala fadhiisteen inaanan aabahood iyo hooyadood midna wax weydiinay wax alla waxay iyagana wax uma filaa dal iyo dadtoona wax uma filaa ballankii ilaahay ma dheeraan u diray waan idin sheegayaa ciiday wax ugu filan yihiin ma jirto waalidka ka soo dabo oo yahay isaga waxba ku tari maayaan ha ku xeeto lafiisiibu khasaariyay oo taabkaagiibu khasaariyay oo isaga mustaqbalkiisu khasaariyay qofkaas warbiyaha wada cabtaan oo iskuulkii baa wada dhigataan oo garoonkii baa wada tageysaan oo dadkii iska taqaanaan oo ilaahay meel buu idin wada dhigay oo ku wada uumantii warkuwii maanta doorka wacyigelinta doorkooda ka qaadan lahaayeen baa tii kuwii doorkooda ka qaadan lahaa ayaa tii ee wuxuu sheegi lahaa kuwa ka yaryar waxaan u malaynaa intiina halkaa fadhida midaan 3-4 ka yaryar inaan jirin kuwa maxaa u reebteen marka la yidhaha hebelnimo ku dagaalama waddadaa mari maayo sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo taliyayaasha ciidanka booliska ee gobolka kuwaas oo fikir la mid ah ku taageeray gudoomiyaha gobolka Togdheer isla markaana ugu baaqay daayirtu inay meel uga soo wada jeestaan horumarka gobolka Togdheer Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.